kulanti wacan daawade kusoo dhawaa xalqadii 41 ee taxanaha Hirjaya. xalqadii hore waxay inoo joogtay ayadoo Miran iyo Rayan isla joogeen misana ay ku wada sugnaayeen gurigii ay Shikran. waxaa goobta ugu imaan doona Hazar Shadolog sidaan wada ognahay, kadibna biskoolada ayuu ku eedin doonaa Miran si uu xabad ugu dhufto. xabadihii laakiin Miran kuma dhici doonaan, Miran derbi gadaashiisa ayuu ku dhici doonaan. wuxuuna Hazar dhihi doonaa Miran oo markan xabadaha derbiga ayuu ku dhaceen, laakiin marka xigta ood Rayan la kulanto adoo Rayan si dhuumaaleysi ah kula kulmay aan arko, madaxaada ayay ku dhici doonaan xabadahaas iyo ogow. Rayan ayaa aad iyo aad u naxday, falka uu aabaheed sameeyeyna ka argagaxday. waxaa dushi sare ka daawanayay Rayan aabaheed runta ah oo goobta joogay, waana odayga la shaqeeya Aslan B. odaygaas isagana xabado ayuu soo tuuray, laakiin xabadihii meel cidla ayay ku dhaceen oo waxaa biskooladii dhinac kale u leexisay haweeneydii Aasii ahayd ay ka shaqeynaysay qasriga Casiise Aslan B. haddaba Hazar Shadolog gabadhiisa ayuu xoog kusoo wadan doonaa. wuxuu leeyahay Miran oo gabadhiida kuguma arki karo, agteedana ma imaan kartid, kadib waxaad samaysay ayaana wax walba u sabab ah. Azad ayaad toogatay, Rayan agtaada way ka dhimatay, adigii Rayanna waad isfuraysan waana kala tagaysaan. gabadhii Rayan ahayd ayuu gaariga xoog kusoo saari doonaa. Shikran ayaa isku dayaysa inay hor istaagto, misena Hazar ku dhihi doonto Hazarow ma aaminsan inaad Hazarkii hore tahay, ma caruurtaada hortooda ayaad biskoolad kusoo baxsanaysaa, ma waxaad doonaysaa inaad dhiig daadisid misena dilaa aad noqotid. Hazar wuxuu dhihi doonaa adigu waxaad hooyo u tahay diilshaah oo nafteydii ka jeclaay, fadlan xadkaada ku ikow, wiilkaada canaano, hadduu hadalkaa maqlayna aan aragno, la hadal, wiilka ayida u tahay. gabadhiisa ayuu xoog kusoo wadan doonaa. Rayan iyadoo oynayso meeshana way kasoo tagi doonaan. Miranna aad iyo aad ayuu u niyijabay. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa odaygii Rayan aabaheed runta ahay iyo Aasii oo wada doodayaan. wuxuu dhihi doonaa maxaa dhexdeena kusoo geliyay, maxaad iiga celisay inaan Hazar xabad ku dhufto, sababtoo ah gabadhayda horteeda ayuu biskoolad kusoo bixiyay. anigoo wax walbaan u dulqaadan karaa, laakiin gabadhayda inay waxba gaaraan uma dulqaadan karo. Aasiya waxay dhihi doontaa ma waxaad ilowday Hazar wax walba uu sameynayo inuu Rayan darteeda u sameynayo. gabadhiisa Rayan ayuu difaacaya, waad ujeedaa inuu wax ku dhacaan ayuuna diidan yahay. iyadii Miran ayuuna kala ilaalinayaa, sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay Miran inuu xabadda si ku talagal ah ugu dhuftay Azad. marka ujeedkaada muxuu yahay ayay dhihi doontaa, ma waxaad doonaysaa inaad Hazar dishid, maseer miyaad u dilaysaa maadaama Rayan ay isaga aaba dhahdo. markaas ayuu dhihi doonaa sidaas ma ahan, gabadhayda inay waxba gaarin ayaan doonayaa. qof walba oo gabadhayda ka oysiina ma dhaafayo, qofkuu doona ha ahaada ayuu dhihi doonaa odaygan. haddaba Aasiya waxay dhihi doontaa haddii aad doonaysay in Rayan aysan waxba gaarin, Miranna waxba gaarin, waxaad ku dadaashaa sidaad kusoo saari lahayd sirta qarsoon ee Casiise Aslan B ay qarinayso. maxaa ku kalifay Casiise Aslan B aargoosigan inay ku dhaqaaqdo? arrinkaas u dhabagal, sirtaasna banaanka keen. markaas waxay badbaadi doonto Rayan, Miran, dhammaan dadkao dhan way badbaadayaan. laakiinse haddii aadan sirtaas soo saarin, wax badan baa halaabi doono. gabadhaada si kastood u difaacdidna ma heli doontid, xitaa inay aabaheed dhabta aad adiga tahay ma ogaan doonto. marka fadhiga ka kac, sirtaas weyn soo baar ayay dhihi doontaa. sidii ayayna ku kala tagayaan. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Miran oo murugaysan, aydiis Shikranna la joogo. guriga ayay kusoo dhaweynaysaa, way dejin doontaa. waxay leedahay adigii Rayan marnaawo ma kala fogaanaysaan, waxba ha swaalin, waxba ha ismurjanin, isdeji. isagana wuu isdejin doonaa, laakiin meesha wuxuu ku arki doonaa boombalihii ay lahayd gabadhii gol ahayd. wuxuu soo xasuusanayaa mar ay gol boombalaha wadatay. markaas ayuu boombalihii soo qaadi doonaa, isagoo dhihi doonaa boombalahan gol ayaa leh. kadibna meesha ayuu kasoo tegi doonaa Miran. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa odaygii Rayan aabaheed runta ahay ee lagu magacaabay Maxfuus ayaa iman doona gurigii Aslan B. haddaba Aslan B ayaa dhihi doona Maxfuus inteed jirtay, maanta dhan waan kusoo wacay, halkeed jirtay? Maxfuus wuxuu dhihi doonaa
waxbaan baaraya, caddeyn ayaan raadinayay, sidaas ayaan ku maqnaa. Haddaba aslan bay wuxuu dhihi doonaa aniga waan baxayaa, waxaan aadayaa Azyad oon ballansannahay, muqaayada ayaan ku wada kulmaynaa. Maanta ayaan kasoo dhammayn doonaa inaan anigu qayb ka mid noqdo reer Shaadhalog. Marka abaal ayaan u galay Azyad, abaalkii ayuuna maanta ii gudi doonaa. Haddaba oday Maxfuus wuxuu dhihi doonaa wiilkaygiyo is ilaali, Azyad ma la aamini karo, wax walba ayaa dhici karo, nafsadaada ka taxdir. Haddaba aslan wuu soo bixi doonaa. Markuu aslan soo baxo, oday Maxfuus kaligiis ayaa isla hadlaya, wuxuuna leeyahay aslanow, haddii aan qorshe aan isku ogeyn aad ku taagan tahay waa hagaag, laakiin haddii maskaxdaada isbedesho oo qorshe cusub oo aniga aan ogeyn aad samayso, marka aniguna gabadhayda si aan ku badbaadiyo wax walba ayaan u samayn karaa, xitaa haddaan adiga kaaga soo horjeesan doono. Sidaas ayuu kaligiis dhihi doonaa ninkii odaygii Maxfuus ahay. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Casiiza Aslan Bey oo taleefaan ku hadlayso, markaana waxay doonaysaa inay arrin ku dhaqaaqdo. Kadib markay wax walba ogaatay siday u dhaceen, markaan waxay doonaysaa inay arrin ku dhaqaaqdo. Haddaba waxaa hadalkeedii dhegeysanayso Suldaana oo albaabkii taagan. Casiizana waxay leedahay aniga ayaa hadeer tallaabo qaadi doona, reer Shaadhalogna anigaa garanayo waxaan ku sameynayo. Haddaba way soo bixi doontaa Casiiza markay soo baxdo, Suldaana waxay wici doontaa wiilkeedii Aslan Bey ahay. Kadibna muuqaalka xiga ayaana la tusayaa kaasoo ah Rayaan iyo Hazar oo guriga imaadeen. Rayaan iyadoo murugaysan qolkeedana u sii socoto, waxa uu wici doonaa oday Nasuh. Wuxuu dhihi doonaa gabadheedii kaalay, ileen meesha waxaaba joogo qareenkii ama abukaatihii warqadda furinka saxiixeedii qaadi lahay. Nasuh wuxuu Rayaan ku dhihi doonaa Rayaan iyo warqadan saxiix waa furinkii adiga iyo Miiraan, waxaan doonaya inaad dhankaada saxiixdid. Kadibna Miiraan ayaa warqadaha loo gudbin doonaa, isagana uu saxiixi doonaa. Sidaas ayuu wax walba ku dhammaan doonaan, adiga Miiraanna aad isku furaysaan. Haddaba Rayaan xoogaa ayay ka cagajiidaysaa, laakiinse ugu dambeyn way saxiixaysaa. Laakiin meesha waxaa joogto Yariin oo Rayaan foodeynayso. Markaas ayay dhihi doontaa Rayaaney, furinka ma rabtid miyaa? Markii hore Miiraan waan furayaa markaad lahayd bootaley may ka ahayd. Haddaba ugu dambeyn Rayaan iyadoo caraysan misena murugaysan ayay saxiixi doontaa warqadii. Kadibna iyadoo oynaysa ayay qolkeedii gali doontaa. Hazar ayaa ka daba diri doona Malaika si ay u soo dejiso. Malaika ayay kasoo dabagali doonta Rayaan qolka ugu imaanaysa si ay u niyad dejiso misena qalbiga ugu qaboojiso. Laakiin Rayaan kama caraysna furinkaas, sababtoo ah waxay ogtahay furinkan in iyada iyo Miiraan ay isku ogaayeen. Furinkan uusan waxba ka jirin, reerka un been loogu sheegay si reerka looga dhaadhacsiiyo in Rayaan ay necab tahay Miiraanna oo argoosigii ku laabtay. Qorshaha noocaasna Miiraan iyo Rayaan ayaa isla og. Haddaba Rayaan markay qolka soo gasho, waxay Malaika u sheegaysaa waxyaabihii Hazar Shaadhalog ku dhaqmay iyo sida uu maanta Miiraan u dili lahay, xabadihii uu ku dhufan lahay oo darbiga ku dhaceen. Ayagoo sidaas u wada sheekaysanaya, Casiiza Aslan Bey ayaa guriga imaan doonta iyadoo qaylinayso. Waxay leedahay reer Shaadhalog banaanka iskugu soo baxa dhammaantiinii. Haddaba kulligood way soo bixi doonaan. Markay meesha wada imaadaan, Casiiza Aslan Bey waxay la hadli doontaa Nasuh. Waxay leedahay Nasuh i dhegeyso, intaanoo sano ayaan isdagaalaynay, dagaalkeena wax faa'iido ah khasaare mooye faa'iido muusan keenin. Caruurta aan awowga iyo ayeeyada u nahay ayaa ku baaba'ayaan. Dagaalkanna haddii uu sii socdo, colaadanna jiilka jiil ayay sii gaari doontaa. Marka aniga dhankayga waxaan go'aansaday in dagaalkan iyo argoosigan aan halkan ku joojiyo. Heshiis ayaan kuu soo bandhigay, heshiiskaas inaad aqbashid ayaan doonayaa. Kasoo fikir ilaa caawa soo fikir. Beri subaxdii waxaad timaadaa magaalada Midyad bartamaheedii. Mari meeshii halkii hore uu dagaalkeeni ka bilowdo, isla meeshaas ayaan ku heshiinaynaa. Dadka oo dhan iyo magaalada oo dhan waa inay ogaadaan in labada qoys iyo reer Shaadhalog iyo reer Aslan Bey ay wada heshiiyeen. Marka go'aankaada iyo jawaabtaada beri ayaan sugayaa. Haddii aad aqbasho dalabkii aan kuu soo bandhigay oo heshiiska ahaa, iyo haddii aad diidaba beri ayaan wada ogaanaynaa. Casiiza Aslan Bey sidii ayay kusoo bixi doontaa. Haddaba Nasuh go'aan nooco ayuu qaadan doonaa. Rayaan aad iyo aad ayay u farxi doontaa marka hadalka iyo Casiiza maqasho. Kadibna Rayaan waxay degdeg u wici doontaa Miiraan oo wadada kusoo jiro.
qasriga reer islanbayna kusii wajahan boombalihiina wado ayay wici doontaa. waxay leedahay miiraano akhbaar fiican ayaan kuu hayaa, mucjiso dhacday. maxay tahay ayuu dhihi doontaa. sidaas ayuu leeyahay, maxaa dhacay? waxay ku leedahay casiisa islanbay ayaa guriga timid hadeer daqiiqada ka hor, waxayna usoo bandhigtay heshiis awoogayna soo. waxay tiri beri ayaan midyaad ku heshiineynaa. marka miiraano arrinkaas ayaan ku faraxsanahay ayay dhihi doontaa. miiraan wuu yaabi doonaa. wuxuu leeyahay waxaan ami qorsho ee aydii wadata uu yahay macquul ma ahan. iyada ayaa asaad tooga igu dhahday sidee hadeer ay heshiis usoo bandhigi kartaa, iyo doonaysa inay badbaadiso ayuu dhihi doonaa. haddaba Rayaan waxay miiraan u sheegi doontaa in warqadihii ay saxiixday. markaas ayuu isagana ka murgoon doonaa, wuxuuna dhihi doonaa Rayaan waxba ismurjanin. warqadaas haddii aan saxiixno iyo haddii kaleba, haddii aydii casiis heshiiska soo bandhigtay reer shaadhalogna ay ogolaadaan iyo haddii kaleba, ani adiga cidna kala fogeyn karta ma lahan. labada qoys haddii heshiiyaan iyo haddii kale, haddaan isfurno iyo haddii kaleba, ani adiga hal unbaan nahay. Rayaanna miiraan la-aantiis ma noolaan karto, miiraanna Rayaan la-aanteed ma noolaan karo. midaas maanka ku hay ayuu dhihi doonaa. haddaba miiraan wuxuu soo wajihi doonaa dhanka iyo qasriga, balse uu casiisa su-aal u weydiiyo. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Asaad iyo Aslan oo wada kulmayaan. in cabaar ah markay sheekaystaan, Aslan wuxuu Asaad u sheegi doonaa in casiisa islanbay ay guriga ugu timid una hanjabtay. markaas ayuu Asaad caroon doonaa, ileen Aslan qorshaan isagaa watay. haddaba wuxuu Aslan dhihi doonaa isdeji Asaadow, wax walbana way dhammaan doonaan. ugu dambeyn iyagoo ismacsalaameyn rabaan, Aslan wuxuu Asaad u sheegi doonaa, wuxuu dhihi doonaa Asaadow guriga iguma casuumaysid miya hal habeen oo casho ah? reer shaadhalog idinkuma imaan kara miya? markaas ayuu Asaad casuumi doonaa, isla caawaba imo ayuu dhihi doonaa. sidii ayayna ku kala tegayaan. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa casiisa oo qasrigeedii kusoo laabatay iyo miiraan oo yimid. miiraan ayaa casiisa su-aalo badan weydiinaya. wuxuu leeyahay maxay tahay qorshahan cusub? maxay tahay reer shaadhalog heshiiska aad u bandhigtay? haddii aad heshiiskaasba u bandhigayso, maxay tahay sababtaad Asaad tooga ii dhahday? qorshahan cusub muxuu yahay ayuu dhihi doonaa. waxay leedahay adiga ayaa igu kalifay, caruurtayda ayaa igu kaliftay, idinka inaan idin badbaadiyo awgeed ayaan reer shaadhalog maanta madaxayga ugu foorariyey, heshiisan ugu bandhigay. marka maadaama Asaad xabadda lagu dhuftay kadib reer shaadhalog inaysan aamusin ayaan ogaa, sidaas ayana wax walba u sameeyey. haddaba iyagoo arrimahaasi ka doodayaan, waxaa imaan doona guriga abuukaatihii ama qareenkii dhankii reer shaadhalog ka yimid oo warqadihii furinka wado. Rayaan dhankeedii way soo saxiixday, miiraan dhankiisa inuu saxiixa ayaa la doonayaa. miiraan markuu warqadihii arko wuu saxiixi doonaa. markaas ayay casiisa yaabi doontaa. waxay leedahay adigoo Rayaan waadba jecleed inaad furtana in lagu dilo ayaad ka xigtay, maxay tahay sida fudud aad maanta ku saxiixayso? wuxuu dhihi doonaa Rayaan iyo argoosigayga laba shay ayay kala yihiin. kor iyo hoosna Rayaan waan furi lahaa, sababtoo ah argoosigayga ayay iga horjoogtay. adiguna si aan kaaga dhaadhacsiiyo ma aqaano inaan weli argoosigayga ku taaganay, sababtoo waxaad u malaysaa inaan argoosigay ka baxay oo Rayaan jacaylkeedii ku mashquulsanahay. laakiin sidaas ma aha, hadeer wax walba way dhammaadeen. Rayaanna waan furay, argoosigaygiina waan ku taaganay, reer shaadhalogna waan dili doonaa ayuu dhihi doonaa. haddaba casiisa islanbay waxay dhihi doontaa aan aragno. kadibna markuu miiraan dhaqeeqa ayay ka daba hadli doontaa keligeed iyadoo isla hadlayso. waxay leedahay miiraanow, furinkan aad Rayaan furtay ma anigaad igu qayaanaysaa mise daacad ayay kaa tahay oo argoosiga waad ku taagan tahay? waan arki doonaa ayay leedahay. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa oday Nasuuh oo la celcelinayo. Jihaan ayaa ka daba qaylinaya, wuxuu leeyahay aabow heshiiskan aqbal, casiisa dalabka ay kuu soo bandhigtay aqbal. reerka oo dhan ayay dan u tahay, wiilkayga ayay dan u tahay, dhammaan reerka ayay dan u tahay. laakiin Nasuuh wuu diidan yahay. wuxuu leeyahay haddaan aqbalo waxay ka dhigan tahay inaan aniga casiisa ka cabsanayo misena ka baqanayo intaanoo sanaba. hadeerna heshiis markay iisoo bandhigtay aan durba ka aqbalay, macquul maahan inaan aqbalo. ayagoo sidii u wada doodayaan, Asaad ayaa albaabka kasoo gali doona. Asaad wuxuu sheegi doonaa in casiisa ay u hanjabtay Aslan wiilkii yarkii Aslan ahay, ilaan isaga ma oga in Aslan bay uu yahay, kaliya Aslan ayuu u yaqaanaa. haddaba Nasuuh ayaa halkaasi kasii caroon doona. soo ma aragtaan casiisa ciyaarta ay ciyaaraysa ayuu dhihi doonaa.
Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Casiisa oo dushii sare ka daawanayso Miiraan iyo Furaad wada hadalkooda. Markaas ayay Casiisa kaligeed isla hadlaysaa, waxay leedahay hal mar haddaan ku guuleysto wiilkan ayeyda u ahay ee Aslan Bey inaan halkan ka diro, markaas ayay bilaaban doontaa ciyaarteyda dhabta ah. Miiraanow, adiga iyo qoyskaada reer Shaadhalog waan idin baabi'in doonaa ayay dhihi doontaa. Kadibna waxaana la tusaya muuqaal xusuus ah warqadihii ay u dhiibaysay Maxamuud oo waana daban ay ka rabtay in halkan ay uga dirto yarkii ay ayeyda u tahay ee Aslan Bey ahay. Haddaba warqadaas wax kale ma ahan, waxay ku jiraan sawiradaasoo ay kasoo xaday ama kasoo qaaday qolkii Aslan Bey. Haddaba muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ayadoo reer Shaadhalog barxaddii gurigoodii ku wada doodayaan, ayaa albaabka laga soo gelin doonaa warqadihii qof ayaa keeni doono. Baqshadahana waxaa ku jira sawiro badan, Miiraan, Rayaan iyo reer Shaadhalog oo dhan ayaa sawiradoodii ku jiraan. Waxaana la leeyahay Aslan Bey ayay ka timid xaggiisii. Haddaba Azad ayaa arki doona sawiradii Rayaan iyo sawirada reer Shaadhalog oo dhan ayuu arki doonaa, sababtoo ah ninka sawiradaas keenay wuxuu ahaa ninka adeegaha ah ee maqaayadii ay ku kulmayeen Aslan iyo Azad ka shaqeynayay. Wuxuuna dhahay, Azadow, markaad adiga iyo Aslan hadday xagga ku kulmayseen, Aslan ayaa warqadahani watay baqshadahan meesha ayuuna ku iloobay, marka ma aqaanin gurigiisa, adiga ayaan gurigaada toos oo imid si aan kuu siiyo isagana aad uga wareejisid. Haddaba Azad markuu arko reerka dhan ayuu u sheegi doonaa, wuxuu leeyahay sawirada Aslan sawiradeyna oo qoyskeena dhan ahaa maxaa guriga Aslan geeyey? Yaariin ayaa ku jirto, Hazar ayaa ku jiro, Nasuuh ayaa ku jiro, dhammaan sawirada qoyska reer Shaadhalog oo dhan ayuu hayaa ninkan Aslan Bey ah. Haddaba Aslan Bey waa xilli habeen ah, cashadii lagu balamiyey ayuuna yimid, laakiin wuxuu ku soo aaday xilli qoyska isku booqsan yihiin, isagana laga shakisan yahay. Dadka dhanna isweydiinayaan maxay tahay sawiradeena, sababtoo Aslan u hayay gurigiisana uga hayay. Markuu soo gala ayaa la qabsan doonaa, waxaa la leeyahay adigu kumaad tahay, yaana sawiro ku dhahay, goormeed sawiradan oo dhan naga qaadatay, maxay gurigaada sawiradan ka qabanayeen? Waxaa weydiin doona Azad, Nasuuh, dhammaan dadka dhan way weydiin doonaan. Haddaba Aslan wuxuu dhihi doonaa, anigu reerkeyga ayaan la ahay, reerkeyga midiyad ayay degan yihiin, sida awgeedii qoys walba sawiro ayaan ka qaadanay si aan u baaro qoyskeyga cidda ay yihiin. Marka idinka reer Shaadhalog ayaan idinkaga shakiyey laakiin markii dambe waxaan ogaaday in reerkeyga idinka aysan ahayn. Reer Aslan Bey mar hore ayaan baaritaan ku sameeyey, maba ahan qoyskeyga ayuu dhihi doonaa. Marka sawiradan ku talagal ma ahan ee arrinkaas anigoo ku guda jira ayaan idinka qaaday, wax kalena ha ii fahmin ayuu dhihi doonaa. Sidoo kale tan wuxuu dhihi doonaa, haddaad qalad ii fahanteen haddaar ayaan idinka tegaya. Kadibna waxaa celin doonaa ninkii Azad ahay, wuxuu dhihi doonaa casho ayaan kugu casuunay, soo dhawow. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Aslan Bey oo miiskii cuntada la fadhiyo reer Shaadhalog dhammaantoodii. Miiraan iyo Furaad ayaa qasrigii dhuumasho kusoo galayeen, dabaqa kore ayay saarayeen, waxayna dusha ka arki doonaan Aslan Bey oo ag fadhiyay Rayaan misena la cunteynayo. Miiraan ayaa masiiri doona. Haddaba Rayaan ayaa dushii sare soo aadi doonta, Miiraan ayaana halkaas kula kulmaya. Rayaan iyo Miiraanna meeshii ku wada hadlayaan, iyagoo meeshii ku wada sheekeysanayaan ayaa Aslan arki doonaa, laakiin si ma sheegayo, wuu qarin doonaa. Oo Azad isagoo arki raba Aslan ayaa celinaya, hoos noo daji ayuu leeyahay. Hoose markii uu soo degaana Miiraan iyo Rayaan in cabaar ayay meesha ku doodi doonaan. Kadibna Miiraan wuxuu wacd ku mari doonaa inuu runta soo saari doono. Rayaanna waxay leedahay meeshan isaga tag, intii runta laga ogaanay ani adiga sidan ayna u kala maqnaan doonaa, meeshii ayna ku kala tegayaan. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Aslan Bey oo talo u soo jeedin doona Nasuuh. Wuxuu leeyahay, waxaan maqlay beri inaad ku wada kulmaysaan midiyad adiga iyo Casiisa, halkaasna aad ku wada heshiinaysaan. Run ahaantii ma xumo in labada qoys ii heshiiyaan, laakiin aniga fikir ahaan ilama habboona inaad Casiisa hadeer la heshiiso, sababtoo ah waxay isku dayday inay wiilkaad awoowga u ahayd ee Azad ay toogato misena disho. Marka dadka inaad cabsata ayay kuu fahmayaan. Markuu hadalkaas dhaha ayuu Nasuuh caroon doonaa, wuxuu dhihi doonaa aniga Casiisa kama cabsanayo, ciidan ka cabsanayno ma leh. Kadibna ninkii Aslan ahay markuu arka xaaladda inay qasantay, Nasuuhna uu carooday, goobtuu isaga soo tagi doonaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Xaniifa oo wici doonta Casiisa Aslan Bey. Waxay u sheegaysaa waxaa qasriga ka dhacay, in la helay sawiro Aslan Bey uu ka qaaday reer Shaadhalog ah,
sidoo kaleetana aslan bay reer shaadhalo ku dhegeen, laakiin uu isbasirayay fikradihiisii cusbaana oo arrinka oo dhan ku xaliyey. Haddaba Xaniifa waxay iska dhigaysay qof aanan garanaynin aslan, oo Casiise markay la hadlay sidaas ayay iska dhigaysaa, laakiin hoosta ay ka og tahay in wiilkan ay ayay uga aadan tahay, sidoo kaleetana uu wiilkeedii yahay. Haddaba waxaana la tusi doonaa Rayaan oo la joogto gabadhii walaasheed ahayd gol, kadibna waxaa usoo gali doonta Malika, taleefan ayay u dhiibi doontaa, waxay leedahay Miiraan waa la sheekeyso. Haddaba Miiraan iyo Rayaan ayay habeenkaasi halkaas ku wada sheekeysan doonaan, riyooyin badan ayayna ka wada hadli doonaan, maadaama beri balantii ay tahay haddii labada qoys ay heshiiyaanna labadoodii markaas rajo ayay leeyihiin, furinkiina wuu ka baaqanayaa, wayna is helayaan. Haddaba subaxdii marka la gaaro, Rayaan waxay ku ducaysanaysaa in wax walba hagaagaan. Goobtii balanta ayaa la imaan doonaa. Reer Shaadhalug iyo reer Aslan Bay waxay imaan doonaan halkii lagu balamay. Goobtana waxaa joogo Aslan Bay iyo oday Maxfuus oo dushi sare ka daawanayaan. Haddaba Casiise gacanta ayay usoo taagi doontaa Nasuuho iyadoo leh, Nasuuho waxaan u malaynaya inaad aqbashay heshiiskii, maantana aan soo afjarna colaadda reer Shaadhalug iyo reer Aslan Bay ka dhexeyso. Haddaba Nasuuho ma aqbali doonaa? Muuqaalka qaybtiisa labaad ayaan ku sharxi doonaa, maadaama xalqada aad iyo aad u dheer tahay, 2 saac 24 daqiiqo ayay ka kooban tahay xalqada Turki ahaan. Waxaan u kala qaadnay 2 muuqaal waan kala barnay. Qaybta koowaad hadda waan sharaxnay, qaybta labaadna 3 saac kadib kaga bogo, halkaasoo dilshaa xitaa ay kusoo bixi doonto, warqadii sirtana waa la heli doonaa. Qaybta labaad xiise gaar ayaa leedahay, la soco. Billahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.